السلام عليكم. وين السلام دمانتين خيارتا كحرن channelkayga iyo groupka telegramka dhammaantiin waan salaamay ee dhammaan inta i daawanaysa luqadda af Soomaaliga inta ku hadasho waan salaamay salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan ka bacdi raaligelin ayaa halkan ka wadaa marka koowaad. Waxaan raaligelinayaa inta aan taleefanka ka qaban waayey, inta mataqaanaa igu wareertay, inta mataqaanaa aan usoo jawaabo mesajada. Sida ogtiinba walaalayaal, aad iyo aad ayaan u mashquulsanaa waayaan anigoo safar ku jira safaro badan xaqiiqdii ayaan galay oo badan oo mataqaanaa weliba dalka gudihiisa ah, hadday tahay Hargeysa, hadday tahay Garowe, hadday tahay Boosaaso, meelo badan ayaan maray. maaha macnaheeduna maaha yacni haddaan message kuu soo jawaabo, inkastoo aan badanaa anigu laftigay maskax ahaan aan jaangaroobo qof bini'aadamka ah mataqaanaa cudurdaar wuu yeelan karaa. inta igu wareertana insha allah waxaan rabaa insha allah mar gooni inaan usoo jeesto mataqaanaaye aan u rakibo mataqaanaa waqti gooni ayagana inta aan ku midownana telegramka walaalaya oo jeclaa markasta inaan u ahay mataqaanaa qofka kaliya sugayaan aan dareensanayo aan asbuuciga hal mar aan usoo galo sunta aanu mataqaanaa aan cashara halka ka siiyo. maalin hore message ayaan fariin ayaan soo dhigay telegramka, inkastoo aan balantii aan weli taagan tahay oo aan caawada casharka idiin soo gelinayo oo maalintii ay dhammaan, haddana aan idiin ballan qaaday inaan casharada candlestick idiin bilaabi doono. casharadaasoo aysan jirin qof Soomaali inuu aad iyo aad uga hadlo. yacni waan arkay dhowr dhalinyaro oo kuwa dhalinyarada forex-ka soo dhigaan, laakiin weliba ay taaban muhiimadda ama habka loogu trade gareyn lahaa aysan cashare ay kasoo bixin ama aysan ku lifaaqin casharada candlestick. muhiim maaha qofka candlestick inuu barto keliya hammer candlestick ama shooting star ama mataqaanaa engulfing ama mataqaanaa waxyaabaha kulli muhiim ah inaad magac adigu aad haysato hal mar kasta aan hammer arko aan trade gareynayo. No, it doesn't work like this. marka laakiin qofka in shuruucda loo sheego insha allah casharka xana ayuu noo noqonayaa. waxaana balan idin kaga qaadayaa inaydan u baahan doonin casharo candlestick dambe. sirta halkan ku jirta waxaa walaalayaal, marka koowaad horta suuqan habka uu ku shaqeeyo waa awoodda candlestick ayay tahay. sababtoo ah maanta anigu haddaan rabo inaan tusaale waddan ayaan aaday, waddanka waa qasab inaan aqaan luqadda looga hadlo, haddaanan aqoonna waa qasab inaan barto. okay, muhiim maaha. marka haddii suuqan haddaad soo gasho waxa koowaad oo lagaga baahan inaad barato waa candlestick. iska ilow wax kale, anaa hadda kuu sheegay waa must inaad barato candlestick. habdhaqanka suuqani waxa kuu sheegi kara sheekada suuqa dhex socoto waa candlestick mar haddaad baratana qof isku filnaansho gaar ayaa ganacsiga ka noqonaysa. wax kale oo ku celinaa ma jiro. anaa hadda kaa balan qaadaya haddii candlestick habkan aan kuu baraayo bug iyo qalin aad ugu qaadato aad u barato casharadan soo socdaana aad la socoto taxanaha. anigu first of all waqtigay ayaan idin hurayaa. cid idin ka mid oo lacag aniga igu siisa ma jiraan inaan live soo galo ama cid igu khasabta. anaa idin karta aqoontan ilaahay sii inaan idiin sii faa'iideeyo walaalay, maadaama aad tihiin. waqti badan baan xaqiiqda geliyey, juhdi iyo waqti ayaan geliyey, wax badan waan u dhafray, qarash xataa waan geliyey, ma fahamtid. marka idinka dhalinyarada qaar waxay dhahaan macallin sunta maxaa caadi usoo gelaa. sunta waxaan usoo geli lahaa horta protocol la'aanta ayaa jirta. dhalinyarada Soomaalidu protocol ma laha, xaqiiqda ayaa aniga ma og wax ka qaldan. xaqiiqdii sunta saa ugu jirta qalimo ayaa la bilaabaa in lagu qorqoro shaashadaha foodo. yacni I don't know why, ma garanayo. war aniga ma ogtihiin horto ani idinka marka la dhaho idinkaa dan leh, ani dan ma lihi. alxamdulillah ani heer waan gaaray, aqoonta arag waan korsaday. hadda wallahi koob biyo ayaa iga agyaal. waxaan ogahay aan xiiqayo casharkan aan bixinayo aan xiiqayo. koobka biyo ayaa markasta cabaya. waxa waaye sababtana waxa waaye jacayl iyo mataqaanaa walaalnimo aan idin jeclaa waxaan wax idinku fahansiinayo oo cilmi idinku siinayo ilaahay dartiis. marka idinka qaar ka mid ah hadday yihiin marka inay foodo bilaabayaan oo casharadii markii soo galo suntii aniga ma soo gelin dabcan ma tijaabin, laakiin waxaan garanayaa dhalinyaro saa lagu sameynayo waa xaadir naadir ah.
suntinta soo gala qalima la bilaabaya foodada marka halkaas ka jirta macalin gudaha xataa lagu sameyn jiray soo dhaca war qalinka ka daaya screenka shardi qalinka la qorqoraa marka Soomaali waa intiin taqaanay in badan oo gruupka tacliin iyo aqoon u soo gashay ayaa jirta in badan oo foodo iyo flaad iyo mataqaanaa dhag hadal iyo mataqaanaa xumaan u soo gashay marka idin kala saari karo marka hal in kamid ah aduu xumaan sameeyo kulligiin waxay la mid tahay in xumaanta aad idin saameynayo halkaas that one person inka dhan fayrs ayuu idinku noqonaya marka niyadjabkana taas ayaa keenaysa in zoom la soo galwaa laakiin insha allah hadda waxaan bilaabayaa hadduu ilaa naftiida course bilaasha oo free ah arday kooban ayaa la qaadayaa waana ardayda anigu aan ka arko akhlaaq wanaagsan iyo inay ganacsigan u hayaan geegsi hami dheer inay u hayaan ardaydaas ayaan dooran doonaa hadduu ilaa naftiida muddo bil ayaana koorsadaas soconaysa insha allah ardaydaas inaan ku dhiso hadduu ilaa naftiida waana qorsheeyey waa bilaash courseskaas wax lacaga cidna anigu kama rabo wax lacagana mataqaana anigu idna ma weydiiyo walaalayaal horta maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago candlestick waa maxay candlestick analyzing suuqani maxaa lagu analyze gareeyaa okay sida ogtihiin walaalayaal horta suuqani laba wax ayuu ku socdaa wuxuu ku socdaa waxa loo yaqaano level waxa loo yaqaano iyo candlestick level marka lagu sheegayo macnaheedu that doesn't mean like maanta suuqa OTC marka waxaan iska xixin akoonkan hala akoonka aan ku duubno intaas aan ku duubno practice-ka okay candlestick waxa loo yaqaanaa walaalayaal candle maanta inaan barayo kana waa cagaar kana waa guduud guduudka macnaheedu waa maxay waa selling pressure waxa socda sell abka ayaad adigu marka uga dhex faa'iideysan kartaa suuqa sidee baad ku analyzing kartaa analyzing suuqan u sameyn kartaa marka walaalayaal saas ayaa maanta rabaa inaan idin wadaago akhlaaqda suuqa loogu trade garan karo candlestick adigoo isticmaalaya levelada support iyo resistance ama supply and demand loo yaqaan habka ugu fiican oo aad ku time garan karto candlestick inaad ku faa'iido hadda marka anu halka qiimeeyo candle compression buy ayaa soo galay calaamadan waxay ishaysaa continuation buy baan u galayaa sababta buy ugu galan waxa waaye waxaan akhriyay candle-ka ayaan akhriyay waa dareemi kartaa suuqan wuxuu u socdaa waa downtrend waxa dhigi kartaa macalin suuqan maadaama downtrend awoodiisa yahay maxaa uga soo horjeesanaysaa waxa uga soo horjeesanaya waxa waaye candlestick ayaa analyze gareey candle-ka adigu marka daqiiqadahaaga trade gareynayso waxa kugu filaan karaa dee waa dareemaysaa candlada anagu hal daqiiqo daqiiqadaha la trade gareyn waa taqaanaa suuqani macno ma ku keenayso yani 1 minute 2 minute 3 minute waxaan waa digital marka guushaada ma ku siin kartaa intaas ma kugu filaan kartaa haa way ugu filaan kartaa mararka qaar haddaad khasaaro la kulmi kartana dee mararka qaar waxaad geli kartaa waxa loo yaqaano in the money ama at the money waxa loo yaqaano oo ah ATM yani waxa waaye lacagtii maadna badin maadna guuleysan okay candladaas ayaan rabnaa maanta inaan barano macnaha loola jeedo macnaha looga fadhiyo qaab dhismeedkooda insha allah casharkan wuxuu noqonaa xaqiiqdii mid taxana ayuu noqonayaa hadduu ilaahay ku imaayo waxaanu ku trade garan doonaa live trading ayaan markaad aqoonta yeelataan xaqiiqdii wax dhib ma saarna ganacsigan anigu ma garanayo sababta dhalinyaro badan uga cabanayaan ganacsigan kaliya waxaa idinka la rabaa inaad waqti gelisaan ganacsigan macnaha ma keenayso in daalka intrigena waa daahna mooye waa win garan lahayn doji ayaa loo yaqaanaa kan waxa loo yaqaanaa spinning top waa continuation suuqan wuxuu cadeynayaa in continuation yani inuu kor u sii socon karo anytime dhib ma leh habkaas iyo habab lamida ayaa rabnaa inaan qaadano oo aan ku trade garano suuqan akhlaaqda samarkii anagoo isticmaalayno waxyaabo badan
ayaan mataqaanaa ku tirigelin. Okay, marka koowaad candlestick waa maxay? Candlestick waa inta sababo candlestick waxaa la dhahaa candladan ama shamacyadan suuqa kala hagaya waa guduud iyo cagaar. Guduud iyo cagaar badanaa dadku kalarku doono qofku isticmaali karaa. Buluug baad ka dhigan kartaa. Doesn't mean in uu markasta kalarkaa yahay. Adigaa bedelan kara kalarka. Okay, hadda aniga kii cagaarka waxay bedelan karaa pink madow, qaar madow bay isticmaalaan, qaar cataan ayay isticmaalaan. laakiin adiga muhiimadaada waxa waaye habka aad ku trade garan lahayd. Nivan haddaa candleka barataan xaqiiqda waxaa ii sheegaa horumar inaad suuqan ka sameynaysaan, horumar inaad ka sameyn doontaa hadduu alla ku roon yahay suuqan. haddaan guda galno walaalahay waa 10 yaro kooban, waqti inaan isku dhumin marno waa in yaro kooban. horta kow candlestick waxa loo baahan yahay qofka intaan guda gelin waxyaabaha uu ka kooban yahay candlestick inaan barno. components fiican waxyaabaha uu ka kooban yahay candlestick wuxuu ka kooban yahay horta kow xaqiiqdii maanta dhan baan qorayay xaqiiqdii waqtigan iyo dib male si qurux badan ayaan u hagaajiyay xaqiiqda isku dayay. components wuxuu ka kooban horta marka waa real body wax loo yaqaano. real body dad taqaaniin waa qaab dhismeedkan jirka oo hadda calaamad blue qoray wajida ayaa loo yaqaanaa real body ayaa loo yaqaanaa. jirkiisa qaab dhismeedka. Okay, maxaa kale uu ka kooban yahay shadows waxa loo yaqaano. magacyo badan ayay ku soo arooray shadowska. waa seemahan ay kor ka taagan halkan. seenta halka hadda waa qaaday halka ayaa geeyay. seenta ayaa waxa loo yaqaanaa shadows ayaa loo yaqaanaa. shadow waxa loo yaqaan wicks ayay bisna dhahaan. seentii laftigeeda waxa ku soo aroortay magaca loo yaqaano wicks ama wick waxa loo yaqaano. haddana tail ayaa ku soo aroorta oo tails marka macna ma keenayso marka intaas magac ka doonta ayaa ka qaadan kartaa. marka hadda buug iyo qalinka inaad ii diyaarsan ayaa filaya. runta idin sheego ya ani waxa markaa baranaya xaqiiqda waa buugayga waa kan been idin sheegayo waxa cilmiga waa ii wada qoran yihiin. buug dhan oo waxaan buuxiyay haddaan idin sheego yaabisan cilmigan aan ku qorto online-ka ka bartay. maalintii ugu horreysay aan maqlay Japanese candlestick ayaan bartay candleladan waqti badan buu marka adii halkan ay soo fadhiisanay fiirin haddaan buug iyo qalin ganacsi aan u hurin wallahi billahi tula inaad baran anaa ku dhaarna. waayo haddii dadku ay buug iyo qalin aan wax baranayn buug iyo qalin lama soo saaran sabuuradna lama sameyn iyo jeesto. bini'aadanka waxa ka qayb qaata waxbarashadiisa waa qorista iyo aragga. intaad wax qorayso oo arkayso indhahaaga waxay sameynayaan wax loo yaqaan eye impact. indhahaaga impactiga ay arkayaan waxa qorayso waa kugu filan si intaasoo sano inaad xasuusnaato aadan ilaawin. misfaham marka qoro waxaan maalin cashir baa idin soo diyaarinayaa. qorta buug iyo qalin usoo garta haddaadan haysan hadda hadduu ka agdhow yahay soo qaado. okay halaas anigu kugu caawinaa. this is a secret and it's a powerful waana awood badan waana secret waana awood. okay waxaa soo hara kalarka sidaa ujeedna kan iyo kan isku kalar maaha. this is red kan waa guduud kanna waa cagaar. okay saa haddaa intaa kala fahanto suuq haddaa wada aragta kan ah waa buy wada cagaar haddaa aragta waa buy u gal ha iswaalin waxbaa waan intusi doonaa. suuq wada guduud haddaa aragto oo yacni guduud yacni wax wada guduud ma wada jiraan. momentum mararka qaar waxaa jira wada guduud oo kor yacni usii kacayo oo lugti dheereed oo sii samayso mise haddaa aragto momentumka waa guduud sell unbaa guduud sell baad u gelaysa. waxyaabaha marka kaalalka wuxuu kaa caawinaya wax waaye boqor baa noqonaysaa ganacsiga fahmaa awood u yeeshaa cidnana u baahan. okay aan ku gudubno inta ku kooban waa fahnaa umalaynaya. real body jirkii oo jirkan weyn dee markaad saad u aragto jir saa u waaweyn oo wada cagaar dee taas macnaheedu waxay u tahay waxaa suuqaasi awoodda ku leh waa biaska ayaa awood ku leh. okay candleka markuu saa u awood weyn yahay u cagaaran yahay waxa lagu qeexaa inuu yahay bullish candle ama candle bullish momentum ama bullish. okay candleka markuu yahay guduudkan waxa lagu qeexaa bearish candle ama bearish candle bearish. marka fahma bullish waxa la dhahaa kan cagaarka bearish waxa la dhahaa kan guduudka. kan cagaarka marka baro wuxuu ka furmaa
halkan ayuu ka furmaa taas oo u furmaaya wuxuu aadayaa kor okay adwaa ka taas ayuu ku furmaa halkaas ayuu ku xigmaa misfaane habka waa inaa barno okay maxaa dhahay candleka cagaarka halkuu ka furmaa hoos dabcan taas ayuu furmaaya markuu furmo hoosta ayuu ka furmaaya okay hoostaas ka furmaaya lowgu soo taabana lowgu waa halkan low uu samaystaa low adhood muxuu aadayaa kor ayuu aadayaa kor highgaas soo taabanaya center dheer high waa xoogaa rejection yar ayaa leedahay high markuu soo taabtubsna halkaas ayuu ku xidhmaya okay misfan habka ayuu ku samaysmaa bullish candleka fiiriya suuq waa intusaya saas ayuu u samaysmaa okay kana ku soo haray xariifkan beerishkana tan ayuu u samaysmaa se halkan halkan ayuu kasoo bilowmaa halka korkaas ayuu kasoo yani kasoo furmaa taas ayuu soo sameynayaa uu soo soconaya halkan ayuu ku xidhmaya okay misfahane taas haddaad u fahanto xaqiiqdii waxaa badanaya guulahaaga ayaa badanaya okay okay hadda waa isla fahanay sooma waxayna dhahay kan bullishka wuxuu ka furmaa hoos lowgan uu soo taabanaya halkaas seenta ah uu noqonaya uu bounce gareynaya halkaas ayuu aadayaa highgaas soo taabanaya kadib halkaas ayuu ku xirmaya okay kana halkan uu ka fur halkan saan soo dhahayaa highgaas uu taabanaya uu soo soconaya lowgu aadaya kadib halkan uu ku xirmaya okay misfan marka saas haddaad u barataan waxaa idin fudaanaya aqoontan inaad wax badan ka fahantaan okay wallahi ku soo celiyo kani openkiis waa hoos kana openkiis waa kor okay kana openkiis waa hoos openkiis kana waa kor kana closekiis waa halkaas ku xirmaa kana closekiis waa hoos waa opposite yani waa kala waa isdaba marsan yihiin okay baa isfahanaa walaas ka gudubno variations waxa la dhahaa ayaa jira variations waa candleka habka ayuu ku yimaado habka candlada haddaad aragto suuqani candle ayu nooc ayaad arkaysaa mararka qaar kalarka inaad garato waa kuu fududaa laakiin waxa kugu adkaan karta kalar asoo libsna oo aad aragto hab samayskiisa meelaad u raacdana aadan garanayn ya okay waxyaabaha qaar lagaaga baahan yahay waxa waaye in suuqan aad fahanto waxyaabaha qaar lagaaga baahan inaad suuqan fahanto waxa waaye haddaad aragto candle weyn oo bullish oo laba seen leh waa bullish haddaad aragto candle oo asana laba seen leh oo bearish ah waa bearish dood ha gelin waa bearish haddaad aragto candle kor ku lahayn seen oo hoos keli ku leh sida hadda u jeedaan halkan uu wuxuu samaystay low ayuu samaystay uu baxay halkaas ku xidhmay okay macna ayaa ku jira macnaha waa u gudbaynaa macnayaasha kulli wax ka dambeeya ilaa iyo 12 cashar waa in ku talagalay waa 16 cashar waa ayaan filaa ana insha Allah mid ayaan u gudagalaynaa okay kana waxa ka sameeyay qaar tan meesha labada seen ismiin kan marka qaar seen dheer iyo seen gaaban ayaa arkaysaa marka seenta inay sinnayn ayadana waa beer shayaan dheer marka qaar waxa arkaysaa inay bidaar leeyihiin candladii kanna seen male kanna seen male kan seen male kan seen okay marubuzo ayaa loo yaqaan candlaga magacyadooda 10 ayaan kusoo bixinaa ayagana xaqiiqdii waa candla awood badan seenna male tails yani tails waa soo dhigan Soomaa male marka dood iyo ka qaban hadii kalarkii uu yahay waa bearish hadii kalarka cagaar yahayna waa bullish okay maxaa kale noo soo candlada mararka qaar yar candle yar oo waxa arkaysaa week leh seen yar leh iyo candle yar oo seen dheer kor ku leh iyo candle guduudan oo seen dheer kor ku leh iyo candle cagaar seen dheer hoos ku leh candlada kulina ayaan waa gudagalaynaa macnaha ay leeyihiin iyo meelaha loogu talagalay in ay ka soo okay inta waa isla fahna ayaa filaya wili wax baa dhiman casharka uu kala go'ay laakiin kan okay waana jir maba lehba doji ayaa loo yaqaanaa jir maba lehba kalarka doona ay noqon karaan it doesn't mean mar cagaar ayuu noqonaa mar guduud okay doji ayaa loo yaqaanaa
dojiga laftigiisa wuxuu kasoo baxaa suuqa suuqa xun way ku badan yahay suuqa down trendka iyo mataqaanaa sideway trendka waa suuqa xun waay suuq gees u soconaayo mataqaan wuu ku badan yahay suuqa down trendka laakiin hadduu kasoo baxo iyo up trendka saameyn weyn ayuu ku yeeshaa oo suuqyada rabno inaan ka egno habka loo tiragelin ayaguna waa baranaynaa waxaan markaa halkaa dojigu waxaa arkaysaa indecision candle in la dhaho candleka waxaad dareemaysaa inuu halkaa kasoo furmay markuu halkaa kasoo furmay in la soo celiyey candleka la soo celiyey isna mararka qaar wuxuu isku dayayaa tusaale ahaan haddaan ku tuso waxaan haddaan ku tuso candlekii meeshuu ka furmay iyo kaa meelu kan halkaa yacni meesha yarka waa meeshuu la isku haysto okay kii guduudka iyo kii cagaarka labada meelba meesha ka furmeen bay weli isku haystaan meeshaasaan ku xirnay waasaa tusaalaha labaad waasfaan umaleyn isla sidii yacni beerishkana yacni kor ayuu kasoo furmaya somaa wuxuu samaystay beerish new high uu samaystay markuu lahaa korka yacni xir bulshka ayaa soo riixaya asagana wuu kusoo qabsanayaa meeshii bay ayagoo is haysta ayay meesha ku wada xirmayaan ayaa loola jeedaa labadooda cidna ma awood badan waayo cidna ma riixin waayo indecision saasaa la dhaha cidna kama awood weyno waa suuqa okay labada haddaa fahno waa isku macno yani beershka ayaa isku soo dayaya bulishka markuu isku soo daya bulishkana asana waa isku soo dayaya iska caabinaya halkan isku qabsanaya halkaas ku wada xirmayaan waxawaaye cidna ma awood badna adina ma iga awood badna anina ka awood badna okay kanaa soo haray asana doji magacyo waa leeyihiin okay magacyo tan long leg doji ayaa loo yaqaana kan waxaa loo yaqaanaa gravestone doji kan waxaa loo yaqaanaa dragonfly doji laakiin magacyadooda idinku wareerinaa hadda insha allah casharada ka qaadan doontiin casharada dambe wax idaa asdhihinina muxuu hadda macalinkeedu ku sheegi lahay waa idiin sheegay qofta adaa rabtaan okay kani indecision ayaa loo yaqaanaa dojiyadan kulli laakiin haddana suuqyada impactiga ama waxay ku leeyihiin ayaa idin qori doonaa casharada dambe waa marka isdejiya kan hadda dojigan waxaad dareemaysaan suuqan inuu halkaa ka furmay halkaa markuu furmay uu halkaa tagay ayaa la soo celiyey suuqan naga noqo ayaa la yidhi halkaa ayuu ku xirmay meeshuu kasoo furmay ayaa lagu xiray kalarku doonu noqon karaa okay guduud yar guduud mataqaanaaye ama cagaar ku noqon kara kanna halkaas ayuu kasoo furmay markuu soo socday ayaa la celiyey marka psychology ka dambeeyana casharada bayaa qaadan hadda waa fahantinaya malaynaya dhalinyarada ay weydiinaysa screenka dhanka iyo insha allah asagana casharada marka cilmiga markaa faa'iidaysan ayaan idinkaga soo jawaabaya insha allah dhalinyarada dhaysan akoonkeena cid baan u dhiibanaynaa ani ciddaa doontaa u dhiibtaa I don't care aniga account managing ma sameeyo akoonnada cidna mataqaanaaye uguma shaqeeyo tan kalena waxa waaye cidnana idinkana iskaga dhiibin idinkalama talnaayo walaalayaalow dacisnimada iska daaya warnimayo annaga waxba inama dheerin dadkuna waxba inama dheera aqoontanna cid kastaa baran karto oo ilaahay mataqaanaa horta idin fududeeyo annagana intaba idinkula dadaalay inaad wax barataan laakiin ha isliidina xitaa qof baa akoonkii ugu shaqeynaa war adi maxaa kaa khaldan adi maa ku shaqaysato kani yacnii muxuu ku dhashay asagu 9 bilood caloosh hooyadiis kuma soo jirin miya marka walaalow ha isliidina idinka aqoontan barta this is very simple war waxaan haddaad barataan suuqii idinka maamulaya suuqani meesha u socdo logic ayuu idinla noqonaya macquul waad baranaysiin wax way fudud yihiin laakiin iska daayana jabka akoonnadiina cidnaha ku aaminin waxa waaye lacagna lagama bixi karaan iskaliilkii ruuxaas waa akoon kaloo magacii uu samayn karaa hadda weliba nairobi hadda waxa ka socota akoon kugu qoran yaa akoon kugu qoran iskaliilkaaga inta ID laga sameeyo ID-gii iskaliilka lacagta lagula wareejinayo that's very simple anaa hadda idin sheegaa lacagtaa waa lagala bixi karaa in a simple way weliba simple marka ku degdegina akoonka haddaa cid u dhibto adaa nasiibkaaga haddii lacagta
نونا عدنا متقنا ما أمن أقومنا إنك نفهمنا إيه أنا ما ده أفهمنا أوكي أوكي ألا نوع كلام ما أنت حبرني components كاندل كوكومي كاندل كوكومي يعني عدا 10 مراجعة دول مرة كاندل كوكومي يعني سين أيو كوكومي كو jirka qaab dhismeedka jirkiisa haye iyo kalarka inta adaad barato walaal waad liibaanta okay bullish candle-kan waxaan niri hoos ayuu ka furmaa halkaas ayaa openkiisa waa halkaa hoostaas waa ujeedaan okay misfaan walaal iisii kala qeexaya okay openkiisa waa halkaa you see so ma jeedaan openkiisa waa halkaa bullish halkaa ayuu ka furmaa halkan waa lowgiisa low waxa loo yaqaan low hoosta uu gaaray okay open high low waa waxyaabaha uu ka samaysan yahay kan okay lowgiis waa center meesha ugu dambeysay ay gaarto okay center u jeedaan okay halkan waa high uu gaaray high uu suuqa gaaray high uu gaaray halkan waa close okay close uu gaaray this very simple that's how barataan xaqiiqdii waa liibaanaysiin aqoon badanna waad korsanaysaa halkaana waa meeshu ka xirmo soo ma jeedaan open meeshu ka furmo waa hoosta lowgan uu aadayaa kadib uu baxaya high buu samaysanaya kadib halkaas ku xirmaya beerishkana halkaa ayaa wuxuu yahay openkiisi okay open halkaas ayaa waa halkaa maxaa dhahay closekiisi waaye halkan waa lowgii uu gaaray suuqa ku gaaray halkanna waa high it's very simple so ma jeedaan waa high uu suuqaas gaaraa haddaad saa u barataan hadda candleka anigu maalin waan susuurayay indhahayga la qabsada marka waan fahmay adina sidoo kale qalin afar nooc la soo qaado qalarka cagaarka ah kii cagaarka suuq talada horta wax in la kala dhageysto waayo suma qofka khibrad wuxuu leeyahay marata inaad sidiisa camal noqoto marata siduu wax u fahmay aniga waxba idin ka qarin maayo sida u fahmay idin sheegaya idinkana sidaas oo kale inaad u fahantaan dar buug iyo qalin qaata marka buug iyo qalin marka qaadataan waxaa samaynaysa buug iyo qalin marka qaadataan sawira wixii sawira saan hadda in leeyahay variation ku soo ugu yimaado sawirta indhaha macallin ku noqonaa wallahi soo wax ku rabtaan inta berber u jifto tasriirtu waa inaad video hal maalin waxa rabtaa inaad wixii fahanto ma fahmaysid buug iyo qalin u qaado qoro video qasab ma maliyum inaad ku soo ceshato wixii aad qortay okay waxa hadda dhahay candle-kan waa cagaar kan waa guduud marka suuqa bala'aan tagno waxaan suuqa ma ka helaynaa noocyada aan soo sheegay kulli ka helaynaa videoga intaas ayuu ku egyahay ma luus karayna okay maalinta kooda idin sheeg suuqa waa la analyskayaa faceka suuqa market structure-kana waa idin baraya insha allah suuqa structure-kiisa waa waxyaabaha ugu awood badan la rabo inaad barato okay waxyaabaha nalooga baahan yahay hadda tusaale un baa rabaa inaad ka tusno moogta kan waxaa ka mid ah dojiga daayada shishay suuqa markuu saa yahay indecision uu galo yani maxaa waaye lama kala xoog weyno waa kalarku doon noqon karaa guduud buu noqon karaa okay inaad fahantaan isku day okay
كان واقف دوجي أسمع كمدا كان دوجي كان دوجي أوكي لما كلا أول يوم أقوى أنا برتا ده كتريد أي كلوز كرنا لكن سلاشن حسوق إنه هذا جدا هذا بملا وعافي عن إن أقون تساؤل له أوكي momentum kan hadda aan ina tusaayo kandhalada kulli aan hadda in soo tusaayo waa kuwan taa waxaan dhahay mid waxaa arkaysaan seen yar leh seenta kale lahayn iyo mid waxaa arkaysaan labada seen leh laba seen leh okay isla sidaa bulishkana waa isla sidaas mid seen lahayn mid seen leh waad arkaysaan mid seentiisa dheer tahay iyo mid seentiisa gaaban tahay kan sidoo kale mid seentiisa dheer tahay mid abka seentiisa dheer seenta hoose dheer seenta gaaban abka haddaad la qabsataan indhihiina adhow macaan ayay noqonayaan okay candle seen la'aan ayaa raadinaynaa hadda candle seen la'aan this is strong hadda strong waay so middan strong anigu igama muuqdaan hadda wax seena halka oo yacni awood badan in yar mooye okay candle kale aan aragno aan seen lahayn saad u qanacaan waxaan la baranaa cilmiga suuqan oo fudud yahay this what we call being in an waxaana waqti ku bixin saas maaliyoon suuqa u fikirineen inkana aragteen ina waqti ku bixin inaad cishka xadiis aan u fikirin okay ila raadi indayna fura kullu waa waxaan baranay mujidin seentigu gadaal ku leeyahay seentigu kor ku leeyahay awood waxa psychology ka dambeeya macnaha loo jeedaa macnaha aad barato oo wax aad rabna inaad barato 10 labaad wixii noqon doona okay kan seen ma soo mujidaan korna kuma la hoosna kuma la waa seen la'aan waa okay waa candle seen la'aan waa nisbaan kan xagaa yadu hoos ku leeyahay kor kuma laha asagan أنا دي شيء إنه أوكي كان واسيدو كله سين ملا شو مجدا وفاريشن كان له كو إيمان كرو واحد إبراهيم وأنا أوقاتن كان له كم لباس سين ما معكر كان والله long leg دوجي وان لو لو قد أدير يقول أو كاس على سكويل ده مرة كان سين ملا وجدي ما يسود وين أو دويسين هاد أيام فلا وجدي دويسين سين ملا كان دان جيس كان أسود سين ملا مجدان هل كان نكمل هل كان نكمل بودي جيس نوام حي بودي أود وين يا وانا كل كيس نواه فيرش لكن سين ملا هذا حين شيء فيريش كوكو إيمان كرو قصب ما إنه ولا ويك متين أوكي أفهم كنا يفعل كرنس كلا يفعلنا كرنس يقعد حلوة إن شاء الله سوق أنا تكتان سوق أنا تكتان أوكي فدام ترند سوقني also use سكسنا يا markii ugu dambeysay bullish momentum ani hadda markaan saadaaliyo aan arko strong candles oo saas cid iga cilmisan jirta inaan buy u galo waayo I know candle analyzing baan garanayaa waxaan garanayaa suuqani inuu sii xigsanayo waayo sababta aan u galayo waxa waaye kow macnaha aan ku galayo waxay tahay candlada wax rejection uma jiro kan kaliya mooyo xoogaa rejection oo aan dareemayo in sellers ay soo galaan sellers kuwan soo galaan laakiin waa la celiyay halka waxa macna ku tusaysaa aadan ugu degdegan candleka markaad barato halkan yacni lowgan waxa sameystay waa sellers baa soo galay new low ay sameysteen waa baaq ah hadhoodu waa soo gali doonaa kadib biaska maadaama awood momentum ay halkan awood leeyihiin waa celinaya waxa naga taga okay hadhow waa arkaysa sellers ku soo galay saas ayaa macnaha ku keenaya inaad candleka barato wax boqolkiiba boqol ma jiraan this is not the holy grail يعني wax maaha boqolkiiba ku shaqeeya waxaan waa system hadda waa idin sheegaa aniga waxaan idinma dhahay haddaa marka idin bara xataa boqolkiiba boqol wax boqolkiiba ku shaqeeya isku qalmi jiraan laakiin cilmiyo la isku geeyay waayo oo adiga experience khibrad ku siinaya iyo aqoon badan waayo inaad kaga digtoon badantaa kan aqoonta lahayn waxaan marka iska dhexgalaya laakiin adiga wax badan baad kaga taqaanaa waa ma fahanti candle hadda waxa ka arkaysin seen mala asan candle
bearish. Okay, analyzing ayaan bilaabeynaa cusub market structure-ka ayaa eedeynaa candle-adan bedeleynaa daqiiqada 1 minute. Okay, 1 minute ayaan ka dhigaynaa, waa analyze garaynayna suuqa. Okay, hadda marka ani halkaa imaado waxaa ii cad halkaa buyers inay joogaan, kuma degdegaayo sababtoo ah aqoonta ayaan yeeshay soo maha, kuma degdegaayo halkaa buyers ayaa joog sababtoo ah daayo xoog ayaa halkaa uga soo galaa, macno ayaa halkaa ku jira soo maha, buyers ayaa jooga si ay kalsoonideedu marka haddaad qof ruleskiisa ku tiragelay haddaad tahay rules waxaa loo yaqaanaa waayo daayo waxaa arkayaa candle doji ah, waxaan u jeedaa priceka daayo halkaa inuu kasoo furma kadib la celiyey, waana xaqiiqadoodu buyers ayaa soo galay. haddana waxaa arkayaa daciif inay sellerska yihiin, markii levelka yimaadaan buyers ayaa daayo halkaa jooga halkaana buyers ayaa jooga, marka yani waana down trend laakiin adiga daqiiqada ayaa ku tiragelisa candlestick-na waa barata soo ma. Okay, waa awood down trend marka levelka marka ku yimaado adi levelka marka ku yimaado halkan waa full level adi. Okay, you wait this level. Okay, you wait this level. At this level you trade, you have to place your trade here. Okay, qofka yani ma lose gareynaya, maxaa uu lose gareyn weyse, maxaa adigu tamani waxani maaha wax aan yani waxani maaha wax boqolkiiba anaa hadda idiin sheegayo, laakiin aqoontaada waxay tahay waxaad hubtaa waxaad analyze gareynaysa inay yihiin wax dhaba baad hubtaa. Okay, laakiin boqolkiiba boqol halkan ma yaalin, inaad isbarto akhlaaqda wanaagsanna waa wax fiican. Okay, let's wait aan sugno momentumka in la raaca, laakiin qurux badan mar walba waxaan dareeminaa biaska daciif inay aad u daciif yihiin, laakiin waxaan ku analyze garaynay candleka, waxaan ku analyze garaynay halkan maadaama yani bias daayo kasoo galaan inay anytime halkan marka la yimaado levelkan ay soo galaan baa ku analyze, laakiin waxaa qurux badan mar walba momentumka inaad raacdaan, inaydan kuma tallaata ilaa aad awood yeelataan candlada aad khibrad u yeelataan inaydan u degdegin, waayo psychology ayaa ka dambeeya, macno ayaa ka dambeeya, waad lose gareyn kartaa. Okay, intaas ayaan kula talinaa. hadda anigu waxaan idin sheegay waa wax ka dambeeya ayaan idin sheegay, waxaan idhi daayo halkaa buyers ayaa joogay sababtoo ah waxaan arkaa rejection aad u awood badan, isna waxaan arkaa rejection oo sellerskii si daciifaya, daayo halkan ayay joogeen marka halkaa la yimaado waxaan hubaa in buyerska ay soo galayaan, awood ay kusoo galaan, taas ayaan ku tiragelinaa. waxaan aniga idinka ballan qaadaya, waxaan anigu tayadeeda waa aragtaan, anigu khiyaali idinkama dhaadhicinayo, waxaan idin sheegay waa pure price action, ma isticmaalo indicator, ma isticmaalo, mana isticmaali doono, mana rabo indicatorada idinkuma diraayo, ma dhahayo yani indicatoradu wuxuu yihiin ma dhahayo, ma xumo indicatorku wuu fiican yahay haddaad aqoontiisa leedahay, waxyaaba badan buu kaa caawin karaa indicatorka, laakiin indhahayga indicator hadda yaani because aqoontan baa waxaan geliyay waqti iyo juhdi iyo mataqaanaaye wax badan baan geliyay, marka aqoonteedii baa hadda indicator ya indhaha, marka idinkan haddaad rabtaan sidaa anugu ahay haddaad rabtaan ka fiican baa noqon kartiin, ma fahamtay, iyo ka fiican inaad waqti gelisiin boqolkiiba boqol waa idinla talinaya. dhalinyarada Soomaalida waxaa ugu baaqayaa qalin iyo buug ha loo qaato, ani hadda kursooyin online ayaan bartaa oo weliba niman ajnabi ah ma sheegaa, hadda daayo korso lasoo dhigay khadka gruupka 28 bishan ayaa la qabanayaa, Raina Teo waa yar forex ka trade gareeya, laakiin macnaha forex iyo kan waa isku midkii, haddaa adiga waxyaabo concept buugaag badan uu qoro waan akhriyey, waa yar aad u fiican. Trader Fest ayaa loo yaqaanaa, Traders Fest
دور أدو ديسمبر لاتين ستيت إلى لاتين سجاك سعنسا مرة هذا أونلاين كورس فري أنا مرة هذا بوكينغريستي وأنا كتب قاعدنا يا كتب قاعدنا يا هاي لو بري سعنسا هذا إذا كربتان إنه جروب كأن هاد سوشيال جرينا يا قفل بقى إن حق لو جيميل كيسجل لبعتين ستيت وقتها كوها حسابته مركي ليش بتاعي ayayso koorsadaas bilaabmaysa habkaas ayaa mataqaan anugu waxbarashada u korsadaa oo aan cid walba oo aan fursad kaga helo kaga faa'iidaysto idinkan waxa fiican buug iyo qalinka inaad wataan waxaan waa xirfad ku qoodin doonta abidka marka inaad u wareerto u dhididto waa qasab aad barato maxaa ku diidan maxaa ku hortaagan adiga isweydiin inaad waxaan barato ani hadda runta idin sheegayaa haddii aad u haysato halkan in jannadii ay tahay ama in maalintii laga samayn karo lacag waa ku khaldan tahay macnaha lacag halkan lagama sameeyo waxaa ka horeeya lacagta intaada sameyn dhib iyo rafaad iyo qaxar baa ka horeeya kadib ayaad walaalo macnaha lacagta sameyn kartaa kadib ayaad wax badan qabsan kartaa kadib ayaa mataqaanaa horumar gaari kartaa laakiin intaada u dhibaatoon wax badan baran waxay ku hagaagi maayo waad khasaaraysa waa niyad jabaysaa ya khasaaradaada badata waxa waa emotionkaaga ayaa jabaya qalbiga ka jabaya كسارة ترى أنا حكوا كنس أقوم أنت أقوم تعرف لكن ما أنت تبغى يعني فرصة والله بالله طلع عني ودية أنا مرة كسارة ما نبقى يعني واحد كسارة واحد خلط دير أنا ندري سنة أقوم تبع الليل لكن ده أقوم تلاقي أنا كسارة واحد أنا كسارة إن أقتهاي تسلم مركب بسنوات كلها بسنوات كسارة وكلها من لكن مركب أنا كسارة خلط كنا أنا قرطو دوا كدك تونانا جبت بوشي كسارة ومكي سنة تعس أيانا جناعسين inaad hore usoo socoto kugu sababaysa laakiin haddaa aqoonta lahayn saaradaadu badanaya qalbijabkaaga ugu ilaa aad ganacsigan deganaya jirto aniga marka koorsadan lacag kagama rabo candlestiga waxaan idin bari doonaa insha allah habka loogu tareergarayo sirta ku jirta waaye candlestigyada ugu muhiimsan ee loo tareergarayo la aaminsan yahay oo shaqeynaya wax boqolkiiba boqol ma jiraan laakiin boqolkiiba boqol goormee noqonaya marka aqoontaada isku ka keento waxyaabaha aan ku leeyahay isku keento boqolkiiba boqol ayay noqonaysaa waa adigoo cabsi iyo waxba ka qaban ayaana tirgelisa marka waa salaamaya dhammaantiin aan jeclahay war soomaaliya horto aniga horto boqolaal qof ayaa ku xiran channelka boqolaalka qof waxaan u sheegayaa waxay rabaan inaan kasoo hadlo waa waxyaabo dhahaan kasoo hadlo كذاك شو هذا ويعود دار إن شاء الله ويا جلوا سيد أكل فرصة يعني لكم سيد أكل فرصة لكم وحربا إن أن قلت وحياة بيسك كده سو يا كان لستيك ده technical analysis powerful technical analysis كان أود بدو مرك لقيه مع اللي في الله سيد support resistance مرك لقيه واحد كل حاجة واحد كان لستيك وبدا أداة تسوي عجينته أود بايلن لسه technical واحد نقول of technical analysis أود كله كان لذا analysis كرنسا أود بتكتر كرنسا هو qof waxaan noqonaysaa awood yeesha okay laakiin haddaan technical analysis ka aqoon technical analysis maaha indicator maaha Soomaalida aad waxay u haystaan technical analysis waxay u haystaan okay commodity channel index waa CCI baa loo yaqaanaa waa sidii wuxuu u shaqeynayaa RSI na isu qabo inta tiraan wax badan waa kusoo jabay beelo been badan RSI relative strength index waa kana aslan ay eagle waa isku sibaya cali okay RSI hadda muxuu ii sheegayaa halka markuu joogay kor inuu aadaa halka markuu joogo kor inuu aadaa ii sheegaa Soomaa kana sidoo halka markuu joogo inuu kor aadaa yani waayo hor waxaan lagu bari jiray yani maaga aan baranay waxay ahayd markuu halka soo aado madaxa uu kor soo taago ina bay u galo ii sheegaa ma garanaysaa ina bay u galo markuu halka madaxa soo galiyana halka uu madaxa soo galiyana inaan seel u galo wax aqal galay maaha marka inaan idin sheego wax aqliga qof bin aadan weyn
aqligiisa qaadan kara maaha waxan man dhacayso adigu candlestick aqoon ana hadda way ii fudud tahay kan inaan ku trade gareeyo way ii fudud tahay waayo maxaa aqaanaa candlestick aqaan hadda يعني باي ayuu socdaa aqoonti baan leeyahay sababtoo ah waxa arkaa momentum bias ah oo candle-kan waxa loo yaqaanaa continuation yani suuqa inuu buy u sii soconayo baan arkaa marka yani dood kama qabi karo hadaan suuqa analyze gareeyo levelada iska ilaaliyo suuqan u diidan levelada yani waxa loola jeedaa levelada adaayo uu suuqan jibsaday tusaale levelada waxa jira suuqan uu xushmeynaa anytime leveladaas adaa iska ilaalin karto suuqani يعني levello inta adaayo soo jirtay resistance u dhaqmaya jir suuq ficilina suuq habkaas yaa loola jeedaa inta hadaa aqoonta leedahay waa ku trade gareyn kartaa indicator laakiin adoo aqoon lahayn indicator ku trade gareyna anima ma ka yeelay maxad inta indicator ka aamin kartaa uu ku taraya indicator ku sheegay wixii yani waa historical data wixii dhacay ku sheegay laakiin marka candle-ka hadda wuxuu sheegayaa in suuqani sell soo galay ayuu sheegayaa okay inuu sell suuqan soo galay hadaa sell u galo waan ku guuleysanayaa okay sababta hadaa sell uu soo galeen new low way sameystaan hadana buyers ku isku dayeen waa la soo celiyay rejection marka sellerska ayaa suuqan xoogaa sii wadaya waa la soo celiyay levelka markay gaaraan sellers ayaa soo galay levelka markay gaaraan rejectionka sellers ayaa soo galay saas ayaan aqoonteeda aan ku bartay ma ogtahay waan aaminsanahay inaan boqolkiiba boqol ku badinayo waayo waa wax anigu bartay waa laakiin indicator-ka aan waxba iima sheegi karo okay marka hal wax baa indicator-ka inay kaga sheegaan marka indicator you only use it for confirmation inuu wixii confirmation ku siiyay okay hadda camal halkaa markuu soo galay uu soo laabtay sell ayuu suuqa u socdaa ayuu waa confirmation anda muxuu sheegayaa isaga sheegaya ay kan ay ka dheh sell ayuu si socdaa confirmation ka ka qaata marka ha aaminina ayaan leeyahay indicatorada waana aqoonta in marka aad barataan candle-da technical analysis uga awoodo candle ila falada labada hadaan iska dhisno dhamaanteen awood ay idinkana aad fahantaan waxa loo jeedo waan salaamaya salaamaya in waxaan lagu celiyo ani waaga hore waan ku jabay wallahi been idin sheegay waan ku khasaaray qolkii ku khasaaray waayo maan garaneyn momentum-ka candle-ka waxa uu haysan jiray mataqaanaa suuqa markuu saa yahay in maanta dhan wada cagaar u ahaanayo muu ahaa wada cagaar ma noqonayo mar waxa jirto guduud uu soo galaayo mar waxa jirto suu guduud soo celbisna cagaarka muddo dad cagaar uu soo galaayo waxyaabaha iskama ilaalin jirin aqoonta waxa ay dhana level waxa loola jeedaa hadda adaayo halka waxa noo ahayd support markuu yani markuu jabo ya supportka yani adaayo halka support ay noo ahayd jabid waxaan loo yaqaan fake out يعني fake out adaayo halkan ay mujida support level waa bisna uu ka soo laabto level uu ka soo laabtay bisna uu soo laabtay halka adaa support buu ku noqdo levelka markaad taqaan aqoontiisa oo rejection-kina aad aragto dee buy baa u galaysaa waa noqdo aniga aqoonta marka ma lahayn waxaan aaminayaa indicator-kana waxaa loogu talagalay qof aqoontii inuu confirmation ahaan u qaato isfahan walaale marka waan salaamaya waxaa la rabaa waxyaabo badan in aad aamintaan oo idinkaga baahan yahay okay waxyaabo badan waxaa rabaa insha allah in aan la qabto fahansiiyo indicator-ku fiican yahay laakiin just confirmation laakiin ha aaminin adiga ka aqoon badan indicator adiga ka fiican adiga wax ka ogaal badan adiga suuqa kaga analyze fiican suuqa hadda marka saad u fiiriso adiga dhahay kar suuqa waa down trend maanta waa inaan sell raadiyo inaan u galo leveladaada ilaalinaysaa waayo si kastoo buy ku tuso buygan waa yaro uu socon marka level ayaa ilaalinaysaa halka suuqa soo laabanayo kadib sell ayaa gelaysaa haddii candle-kan aad ku qarsoon tahay engulf candle uu yahay 1 2 3 laba candle uu engulf gareeyay waayo waa bullish engulf waa awood badan yahay rejection ma leh buy baa u sii galayaa waa halka daqiiqo uu isii soconayaa uu sheedina waa waan gaar waayo halkan waa level waa support level okay
saasaa suuqa ku analyze garanaysaa candlelada waayo waa taqaan awood waa hadda kan waa strong candle anytime ayuu bisna kor usii soconaya haddaan dhaho ma ku khaldana may kuma khaldani waayo candlekan daciif maaha waa candle awood badan okay yacni waxa ku analyze garanaysaa waxa waa in candlekaasi momentumka ay yihiin bias momentum and candlekana anytime rejection diidi karo uu u noqonayo kor uu u noqonayo okay okay momentum waxay tusayaa uptrend kor u socdo ka camal hadda العمل هذا المركز إكتان كعمل المركز هذا إكتان سوقنا وحمي هاي على المحل الوجه إنه حمي واحد أركنا كان الله هل كان وجد ويريريه مرات قار واحد شلا تريد أتكو أنالايز كريسي يعني داون ترند نتوقع الشو يعني هوس المكوسي الشعور إن وكلا آلا أب وكلا آلا كان عمل أنا مركز بروبلم كان إيش هي مرات تابعك كان لك هل دقيقة أيو سعر علينا هل دقيقة أيات تريد كرينيسا يا هل كان أي أب واحد أوقش يعني واحد أوقش داون أيات أوقش هذا إلهن أيكش كان لك أيك أسمو دوش هذا ترى إنك شفته سام إنترنت كان لك أيك إنك سامين وسامين كذا تروح وصل كذا marka emotion kaaga la trade garanaysa isla markii bisna kan adaad hoos u gasho waad guuleysan kartaa laakiin muhiim maaha in aad guuldarada diidan tahay guuldarada waa khalad yar aad gasho aqoonta adaa leedahay hadda day ani waan guuldareystay soo maa waan aaminsanahay win and loss okay martingale ayaa sameynaya meeqaa luus gareeyey waxaan luus gareeyey 4 Soomaa 4 8 waxaan khaladkan galana waxa waaye suuq uptrend yani down trend ayaan up u galay Soomaa okay hadda waxaan dhahayaa levelka markuu gaaro down ayaa u galaya maadaama suuqan marsiira uu email waa levelka isoo gaaro hoos ayaan u galaa waayo adaayo xoog ayay uga soo galeen bias okay ayaan leh mafahad candlekana waa calaamadaheeda dhan waa inuu buuxiyo okay hoos ma galaa weli degdeg ma jiro waayo waxaan ogaa candlekiiba hal daqiiqa aniga in guushooda ku jirto rejection yar waa mid aad u weyn maaha haddaan soo dhaweysto ma jirtaa mid weyn maaha yani mid weyn maaha mid aad levelkan ayaan rabaa inuu markuu iisoo gaaro inaan trade kariyo okay ida biaski waa celcelinaya marka guuldaradeeda kana waa halaha inta la celcelinaya ayaa guuldarada okay rejection ayaa rabaa candleka rejection waa weyn inuu yeesho kadib inaan hoos u galaa rabaa okay waa diidmada rabno waa waayo halkan waa level de taayo xoog ayuu uga soo galaa okay haddi candlekan uu ii dhaafo uu awood ku dhaafo yani okay xoogaa kor buu u kacayaa hoos ayaan u galaya حتى تتبدل تتبرر no problem تتبرر ماشي ليش لا فاهم تكلا عندي شيء ولا ليالو يعني and IQ option ka and waxa loo yaqaano khasaarihiisu mararka qaar buu khasaaro badan yahaa khasaarihiisuna waa khatar miiran xaqiiqdii waxaad khasaaraysaa boqolkiiba boqol baad khasaaraysaa faa'iidadana waa boqolkiiba 80 ayaad faa'iidi kartaa qofka
hadduu يعني aqoon yeeshana khasaarihiisa wuu maareyn karaa yani wuu is ilaalin karaa يعني raashooga ayaa aad profit ka dhigtay ani markaan dhaho hadda $100 ayaan gelinayaa maxaa faa'iidaya mararka qaar waa 80 mararka qaar waa boqolkiiba boqol mararka qaar profitka okay iska badha 87 ayaan faa'iidaya ani maxaa khasaaraya boqol ayaan khasaaraya okay aniga boqolkiiba boqol khasaaraya faa'iidadayna waa 80 marka khatar waaye inaad suuqa barato taas ayaa kugu qasbaysa khasaaradaada haddaa aqoonta yeelato halka mar aad khasaarto mar labaad waa inaad guuldareysan karto yani aad guuleysan karto aqoonta kugu guuleysan kartana waa inaad taqaan maadaama aan idin sheegay halkan level ayaan dhigtay waxaan dhahay waan khasaarnay xogaa suuqa waxaan isleeyahay momentum up ah waxaan ku khasaaray suuq down trend waaye halkan chance marka meelaha joogo waad geli kartaa laakiin suuq xogaa su'aal soo celinaya marka xogaa su'aal yani hoos baa la rabaa inuu socdo suuqa magarnaysa waan ku khasaaray halka laakiin waxaan dhahay aqoonta haddaan leeyahay aniga martingal ayaa sameeyay lacagteeda aan khasaaray $4 waa laba jibaaraya $8 anoo ka fiirsaday levelkayga markuu suuqa ii gaaro aan arko rejection ya rejection waa arkay sellerska inuu soo galay suma traderkayga halkaas ayaan ka qaatay okay kalsooni ayaan ku trade garay waxaan ogahay inaan win gareyna waayo sellers area waa halkan suuqana waa maxay suuqana waa down trend waa suuqan hoos ayuu socdaa okay kalsoonida labaad waxaan arkaa candle analyzing ayaan aqaana waxaan arkay rejection halkan waxaan arkay diidmo marka I will win of course I win gareyna habkaas ayaa maanta in ku trade gareynaysaa okay isla levelka markuu gaaro halkaas trade-kaaga qaadanaysaa marka halkaa ku gaaro trade-kaaga okay iskama qaadanayo waxa ku qaadanaysaa waa maxay aqoon okay khayr ayaan rajeynayaa hadda waxaan aragnaa rejection awood badan suuqan hoos ayaa loo socday waxa la leeyahay noqo okay markuu bias waxaan idin halkee ka furmaan halkaa hoosta halkana ka xirmaan sellerskan halkee ka soo furmaan halkaa sellerska halkaas hadee ka soo furmaan halkaas way soo diidayaan okay sellerska halkana ka soo furmaan halkana ku xirmaan okay hadda ujeeda sellerska halkee ka soo furmaan halkaas sell waa la diiday waxa la leeyahay noqda okay halaas hala ka badan ayaa jeclay inaan isticmaalin doono wax yar insha Allah waxay hadaad barataan anigu wallahi suuqa waa waxaan garanayaa gariir jiray dad jiray laakiin hadda fartad ugu yeeraysa hadaad adigu barato marka price action ayaa muhiim ah suuqaagi inaad saa u analyse garan karto candle-ka waa sheekada suuqa ka socota ayaa fahmaysaa marka ani maanta arko candle awood badan oo beersha bulshkana ay yihiin kalsoonideeda waxaa siinaya beershka waayo khasaaradeedu waa yaraanaysa waayo beershka ayaa siinaya kalsoonideeda mar walba lugta yar ay samaysato lug ayaa samaysmaysa beersha waa ujeedaan suuq waa sii dedeganaya suuqa sidaas ayaa la rabaa inaad u fahantaan kandalada marka saa u yareerayno xun yihiinna suuq waa iska ilaalinaysaa inaad trade galeen kandalada waaweyn ayaad badanaa trade galanaysaa kandalada yar waayo qataato waxaa la yani waa in entry fiican aad raadsataa entry fiican haddaadan helin khatar cadiim waayo halkan aad u gashay camal down trend biaskan way soo diidayaan halkaa marka biaska diidayaan halkan aad down trend ka gashay biaska diida candleka daciif ayuu ku xiran marka khatar ayaad gelaysaa okay levelada mar walba iska ilaaliya level is very important levelka awood inaad u yeelato hadda levelka resistance level ayaa ka dhigan waayo taa halkaas support level ayuu marka ahaawo leveladana waad iska ilaalinaysaa habka idin sheegay levelada hadda kula laabanaysa maawaad fahansanta khayr ayaan rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu commentiyada hala igu reebo qoljar baan idin sheegay commentiyada anigu waan akhriyaa waqti baan idin siiyaa commentiga hala igu reebo waxaad ka fahanteen suuqa okay sida aad u fahansan tahay goorta aad bilowday iyo waxa ii sheegtaan inta bilood aad watay sidaa suuqan u aragtay ani ahaana maxaana kuwa caawiyey oo suuqani aan kaaga dhisay xaqiiqdu way dhiirigelinaysaa waxaan igu dhiirigelisay fiideo badan inaan idin soo sameeyo intaan idin sheegay waqti dhiirigelin ayay noqonaysaa waxaan kuwa caawiyey oo suuqani aad wax badan iskaga bedeshay iisoo qora boqolaal qofkaas fiideo daawato 5 qofna commentiga kasoo bixisaa macquul maaha marka inuu ma garanayo sababtaas bal kasoo jawaaba arrintaa insha Allah khayr ayaan idin dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu ana jecla dhammaantiin keep trading insha Allah خير بقى يعني الشيء خير بقى يعني الدنيا السلام عليكم